عليكم سودو ما تحكي لنا سيدو وفود كنت سكرتي قرشوح برشو أفقد حليل هذا ستاري بلان قرشان حوافع أرضيدا وحبرنيسو يسيدو كلا دad كربو إنay samaystaan balaan ama qorsho si ay u gaaraan hadaf ay leeyihiin haddaba haddii aad dadkaas tahay videoan aad ay ku anfacayaan inta aan gelin video kood waxaa rabaa inaad videoga subscribe saartaan share garaysaan insha allah haddaan u galna marka gudaha lambarka kood wuxuu noqon doonaa waa in aad isweydiisaa su-aasha waxay tahay ma waay sababta u rabtid maxay tahay inaad u samaysatid study plan ama qorsho waxbarasho waa maxay sababta u rabtid inaad u samaysatid waa su'aal muhiim ah inaad nafsadaada weydiisaa because of dadka qaar waxay iska samaysanayaan qorsho ayagoosan ogeyn ama ka lahayn ujeedo so marka waxaa la rabaa markaad qorsho samaysanaysid waa inaad ka leedahay qorsho aad samaysanaysid hadaf inaad ka leedahay haddii aadan hadaf ka lahayn beliis ha samaysan qorsho haddii aad ka jawaabtid su-aashaas kadib waxaa xigi doono maxaa rabtid waa maxay waxyaaba aragtid inaad daraas garaysid ama akhrisid okay maxaa waaye waxyaabahaas ko waa inaad qortaa marka waxyaabaha rabtid waa inaad qortaa waa inaad warqad ku qorataa then kadib waa inaad go'aansataa waqtiga ugu fiican aad akhri kartid ama waqtiga ugu fiican aad samaysan kartid waxyaabaha aad qoratay tusaale ahaan subaxdii habeenkii duhurtii intuu badan anaga subaxdii waxaan jirnaa jaamacado waxaan jirnaa intuu badan shaqo so way adag tahay marka qofka inuu subaxdii samaysto maxaa la study plan galabtiina waa sidoo kale laakiin galabtii ilaa iyo habeenkii waa waqtiga aad ugu fiican so qof walba isiga yaqaan waqtiga ugu fiican laakiin waxaa isku daya inaad samaysatid waqti aad u fiican oo isdhigi kartid waqtigaas ay ku fiican oo wax aad akhri kartid so markaad samaysatid waqtigaas kadib waxaa la rabaa sidoo kale inaad samaysatid time okay ama jadwal inaad samaysatid tusaale ahaan isbuucii wuxuu ka kooban yahay 7 maalin 7daas maalin waxaa la rabaa marka maalmo mucayan ah inaad wax akhrisid maalmo mucayan inaad nasatid tusaale ahaan oo kale sabtida ilaa iyo khamiista laga gaarayo waa inaad lahaataa qorsho khamiis iyo jimcane waa inaad xogaa maalmo aad nasatid ay ahaadaan so marka waa kuu muhiim inaad lahaataa chart ama timetable kuu degsan oo kuu qoran sidoo kale hal mid ayaa muhiim ah inaad kugu darrabaa markaa wax akhrinaysid si waqti go'an okay tusaalahaan habeenkii oo kale waxaa rabtaa inaad akhrisid 2 buug labadaas buug aad akhrinaysid waa inay ku lahaadaan halkii buug aad akhrinaysid waa inaad siisaa waqti go'an tusaalahaan buuggii waa inaad siisaa 40 daqiiqo buugga kalena 40 daqiiqo waa inaad siisaa okay halaas waa marka timeka iyo qaabka u degsanaysid jadwal waxaa kula wadaagaa marka waxyaabaha asina kaa caawinaya in jadwalkaas kuu hormaro okay ko waa inaad iska ilaalisaa waxa la yidhahda mobile iyo tv inaad wax ku akhrisaa markasta oo akhrinaysid ama markasta aad samaysanaysid maxaa la yidhahda waxyaabaha u baahan tahay waa inaad ka fogaataa mobilekaaga waa inaad ka fogaataa tv hadduu guriga kuu jiro waa inaad ka fogaataa waxyaabo kasta oo ku carqaladeyn karo because waa ognahay tv iyo mobile lagama maarmo intuu badan sidoo kale waa in aad qaadataa resting ama break inaad qaadataa tusaale ahaan waxaa akhrisay 40 daqiiqa wax akhrinaysid 20 daqiiqa ka mid waa inaad resting qaadataa aad baxdaa mobileka waa inaad tagtaa mobilekaaga qaadataa soo fiirisaa haddii lagu soo wacay haddii because hal saac way adagtahay inaad mobilekaaga baxday so marka waa inaad baxdaa mobilekaaga soo fiirisaa waxyaabo qaas soo subsataa so marka waa inaad break qaadataa waa inaad sidoo kale marka akhrinaysid ka fogaataa mobiladaada iyo waxyaabaha qaar isticmaalaysid the last one wuxuu noqon doonaa inaad isticmaashid waxa la yidhahda calendar okay because calendarka wuxuu ka caawinaa in aad kuu sheego waqti aad bilaabaysid maxaa la yidhahdaa qorshahaaga iyo sidoo kale wuxuu kuu sheego waqti ugu go-an ugu dambeysa oo aad dhamaynaysid qorshahaaga so calendarka waa kuu muhiim haddaba insha allah waxaan rajeynaa inaad video waxyaabo badan ka faa'iiday haddii aad ku cusubtahay fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto thank you so much